khilaafkii xalay anigii adigana dhex maray go'aamo fiican baan ka gaaray go'aan baan ka soo gaaray haa anigaba sidoo kale anigu taad waxba igama qosaysa teedan ka hadlaya ay dhegayso inay yahay waddo kale kuma bannaana waa inaad shaqadaa iska soo casishaa teeda kalena waa inaad shandadahaaga aad xidhataa joogis mana meeshani gobolkaygii baan dib ugu laabanayna hooyo aniga beentas inaa sheego sabab ayaa igu kaliftay naa aniga sabab lahayna sheekadan intaysan kugu furmin oo la ogaan aan ka dhaqaajina meeshan aniga meel aan u socdo ma jirto hooyo naa maxaad tiri aniga go'aankayga waa sidaa hore kuugu sheegay shaqadeeda ma ka soo tegaay dharkaygana ma la laawanaa meeshaana ma ka tegaay naamad isku dhex yaacday maxaa ku helay aniga nolosheeda go'aanka ma gaari karto hooyo noloshan aad ka sheekanaysid soomaha nolosha annagii aan kugu soo korinaynaantaydi yaa in dhegayso waxaa igu kalif baa kugu dhi aabbaha inaan kolgareeyo wac hooyo hadda wac dadkoo dhan iskugu sheeg aniga meeshaan laga yaabo inaan ka tago taada kale gaarigan ayaa degnaa nolosheedu ku dhammaysanaya dadkan haddii ogaadaan xabsi ayay geenaan kadib aniga waa dhiman anaaba dhimashada diyaar u ah hooyo inantayda hooyo saha u hadlin maskax degan ku fikir hooyo isdeji adigoo fikiray wax walba go'aan ka gaaray hadal aniga waan fikir hooyo beentan inaan sheegano mar hore ayaan ka fikiray fikirkaan wuxuu soo bilaabay maalinta aniga go'aansada inaan been sheego adiga ma ii dareemi karta aniga xalay oo dhan waa fikiraaye hooyo adiga inaan faraxsana may kula tahay noloshaan beenta inaan ku qanacsana miyaad mooddaa hooyo musalsalkani wax walba ayaan kuu sheegay si aad talo ii siin leed laakiin talo maxaa i siisaa aniga ayaaba iga dhigta beenley laakiin qofkaad igu tilmaamaysid aniga ma ihi asli guriga xaaladiisa iiga waran guriga xaaladiisa waa dhagdhag hooyana iiga waran baayo hooyo way xanaaqsantaa madax xanuun uu haya saddexda erayaa weydiisaa ku soo koobin wax kala weydii anaaba jeclaysiinaa saddex eray hadalkayga ku soo kooba ka waranay beek fiira baa xayaad arrimaha shirkadda iga dabageeba adiga mudanahaaga mar kale maa isdagaashay yacni muraadaan ka hadlaa maya dagaal ma dhicin laakiin hadda aniga waxaan ku ducaysanaa dagaal inuu mar labaad dhaco no macnahaa walaale sababtoo ah habeenka aniga muraadka soo kala tegeen jabi macaan ayaa ku jiran asagana wuxuu weydiin rabaa sababta aniga uga soo tagay muraadna haddii uu su'aal ku weydiiyo waa inaad u jawaabtaa isla markiiba hadda haddaan muraad hor tago oo su'aasha i weydiiyo maxaan ugu jawaabaa saaxiibyaalow gabdha muraada soo socda waa nigu soo celinayaa subax wanaagsan mudane muraad subax la mid ah gaajlan aawo dabaqa hoose ayaa looga weeca adiga marka kafey ma kuu keena aad cabtid maya kafey uma baahni adiguna xafiiska iigu imow xagee igu soo socotaana iga joog waan ogahay xalay in aniga wax qaldan aan sameeyey xayaad waan ogahay xalay wixii dhac inay yihiin wax xun balse aniga hadda kuuma sharxi karo muraad marka hore i dhegayso waan ku baryaha iwaalin aniga ayaa hore u soo waashtay waan ogay in adiga ii waalan tahay waan isku wada waalana aniga adigaba haddana weli xaaladda waalida ayaan ku jiraa aniga bis waxaan rabay xaaladaadoo keliya inaan ogaado maxay dhahdeen laakiin muraad sidaan o dhan waa maxay of course wax kale ma jiraan runtii aad baan kuuga xiisay udgoonkaagana waan u xiisay sidoo kale indhahaaga xitaa waan u xiisay soo gal
miss xayaad mar kale ayaan arkaas ka hadlaynaa waayahay haye gaajil soo hadal adigana waxa waaye mudane iga raali noqorto marka hore midda kale aniga waxaan halkan kugu imaaday barnaamijka maalin walba aan ka hadli jiray inaan ka hadalno saasaan kugu imaaday mudane muraad xilli qaldamaa idii imaaday